الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عايدين فايزين مستبشرين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مسلمين تعالم كأردن جارهان dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan maanta oo axada oo ciidul fidriga ahaa Ramadaan aan soo dhamaysanay aan joogno ciid wanaagsan. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa kuwii soonkoodii la soo aqbalay oo cibaadadii ay soo sameeyeen iyo soonkii Ilaahay uga dhigo mid la aqbalay dunuubtoodiina uu dhaafay Ilaahay ha naga dhigo. Waxaan Ilaahay weydiisanaynaa maalmaha sharafta lahaayeen soo maray oo noo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam albaabaha samadu inay furan yihiin oo ducada ay mustajaab ka tahay. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa ummadaas Soomaaliyeed ihaanada iyo khilaafka iyo isnacaybka iyo kala fogaanshuhu baabi'iyay Ilaahay inuu ka dhex saaro waxaas dhex yaala oo masiibada ah isnacaybka iyo iska horjeedka iyo iskhilaafka Ilaahay inuu ka dhex saaro. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa walaalnimadooda dhabta oo ay walaalaha yihiin iyo walaalnimadoodii hore asalka u ahayd labadaba Ilaahay ha u soo celiyo. waa walaalo dhab ah haddana dhaqankaas kharibay nacaybka iyo khilaafka Ilaahay ha ka dhex saaro. walaalnimadoodii Allah u soo celiyo. haybadoodii qowmiyadeed ay lahaan jireen iyo karaamadoodii iyo qarannimadoodii sareysay Ilaahay ha u soo celiyo. waxaas dhibka ah oo hayana Allah ka saaro. ثانيا waxaan rabaa inaan in yar laba dhowr kalmadood ah aan haddana isfarno oo haddaan nahay shucuubta Soomaaliyeed ee muslimka ee halka aaba ee walaalaha ah Ilaahay aan ka cabsano. arrintan masiibada oo khilaafka oo dhaqanka noo noqotay aan ka harno waa cadaab waa ihaano. Ilaahay baa quraankiisa noogu sheegay dadka haddii khilaaf dhex galo oo khilaaf laazimo in adduunyada ku duloobahayaan awoodooduna baaba'ayso. khilaafkaas masiibada ee sidaas noo baabi'iyay ee aad ogtihiin maanta caalamka meelaan joognaba aan ku ihaanaysanahay aan ka harno. walaalnimadayadii iyo khayrkii iyo isjacaylkayagii aan u noqono si Ilaahay karaamadayada annagana noogu soo celiyo. wixii naga dhaca oo dunuuba aan dib ugu noqono kullumna aadama khataa'uun wa khayrul khataa'in at-tawaabuun. yaa nabigeenu leeyahay dadka oo dhan waa kuwa khata ah oo gafa oo dunuub gala. kuwa dunuubta galana kuwa ugu fiicanu waa kuwa Ilaahay u soo noqda. Ilaahay kuwa u soo noqda weeyaan. marka ciidii aan tukanay oo mubaaraka ahayd oo maanta ahayd shalana oo dhacay khaladka shalay ahaa oo aad aragtaan oo gidigiin shaahidaad u tihiin. awal dadkii arrintaas ku dhacday oo shalay afuray Ilaahay ha u laabteen oo maalin ha qadeeyeen Ilaahu wixii dambi ahaana naga dhaaf yiraahdeen ilaa way og yihiin oo waa dhab. haddii hadda aan ku iraahdo guri mugdi ku jira qorraxdii way dhacday oo aad run moodood maqribkii tukata ama afurtood banaanka u soo baxdo aragto qorraxda inay soo jeedo soo salaadaadii ku noqon maysid soonkaagina dib u qadayn maysid. waa sidii markii hore waxba la sheegay laakiin waxa cadaatay inaan wixii jirin aan dib ugu noqono toobad Ilaahay dambi dhaaf aan weydiisan waa naga aqbal haya Ilaahay. inta sabab u ahayd arrinta inay sameeyaan marar badan oo noqda Ilaahay ka cabsada khalqigiisa Ilaahay waa cabsada shareecada islaamka Ilaahay waa cabsada rugniga islaamka ee la duminaya la baabi'inayo oo soomkana Ilaahay waa cabsada. wixii aad samayseen oo gafa oo dadka aad u horkacdeen ka laabta adinkoo waliba oranaya ilaa tawbada waa shardi. markaad wax ka toobad keenaysa dambi oo samaysay waa inaad tiraahdo qawli hada baadil wa ana naadimun bihi wala a'uudu ilayhi. hadalkii sidaas ahaa aan dadka ugu yeeray islaamkiisaas ahaa beenbo waxa waan ka nidaameysanahay una noqon mayno. intaas Ilaahay iyo idinka rabaa inaad adinkuna u noqotaan.
waxaa kaloo ayagana muhiim ay tahay dowladnimadu waa nolosha bani aadamka haddaan dadku dowlad lahayn ma noolaanayo waad ogaateen dowladna waxay dowlad ku tahay in loo midaysan yahay oo shacabkuna shacab ahaan dowladdii u yahay maamulkiina uu dowladdii ku yahay inta dowladda ah ee mas-uuliyadda haysaana ayaguna ilaahay ha ka cabsadeen dowlad weyn ha ahaadeen dowladda yaryar ha ahaadeen ilaahay ha ka cabsadeen shacabka ha uga cabsadeen ilaahay diintiisa ha uga cabsadeen awoodda ilaahay u dhiibay ay dadka ku maamulahayaan ilaahay ha uga cabsadeen waxa ay samaynayaan hadday wax ay wanaag u arkahayeen ay arkeen inay khalad noqotay مثل hay-adihii dowladda oo kale hadda oo wasaaradaha arrimaha diinta iyo arrimaha qaabilsan wixii ay ku dadaaleen markii ay arkeen inuu khalad soo baxay inay dadkiina ay yiraahdaan war arrintaas hadda annagu sidii aan u xukunnay way ka bedelantay annaguna arrintaas sidaan moodaynay ma noqon